wareer kalamaano wala san ogaaynaha ogaadi geeka beriyaagu mayl karkaryo ha walilay qabyaalad wardari miyaa lagu kariyo mise digsi afka kiida wala karkaryo ay dhagansoy waan horalin ogaaday waan hata la ogiya geedan Soomaali maryoolay leeyahay qabiil haka noqdi taabaan ka deerti may aan baahanta qaran i dawladnimo aan baahanta war muwaalanta dada waada qabiilka la qabsaday war qabiilka dawladda lagu soo dhisay war kale ma haysa neew gobolku erin malka toobaha warka oo dhagansoy war sheekadii galmudug mar haddii amisoon la geeyo waa soo xirantay shibay shib miya amisoomiyo awoodayadaan ku adeeganayna war amisom ha haynina awe ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed war waa joogaan ayagoon la aaminin war hadhaya madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynihii hore Galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed waxay yiraahdeen warka Sambaloosha lama qabno marka Sambaloosha ma dhihin markii hore nimankaas ay la qaba xagee ka keenan ayagu beeninta warnama yaw lang mogdika daanfirgi wiliin aragdeena mogdiska daanfirgo waxaan la gabow yoonay la gabow dorma banka baahan war ma haysan Sheekh Xasan Daahir ayaa leef soo galay war xabsiga haliga daayimay uu yiri war alihiin hado alihay oo talnahay qaraabanahay macallin Maxamuud yaan leeyahay soo xaq xirino oo yiri miya war ninka soo xabsi ku jiro aroos galay faraha ka qaada war meel kale nala aadeen Xasan Daahir wuxuu yiri bahalkii muxuu ahaayay ii sheeg Sambaloolshi qabyaalada aan 30 sano ku dhac jirnay muxuu ahaayay hanaga daayo wadaadku ayaantaano xabsiga dhaxdiisa nabad iyo nolol ku taageeraye goormo ku biiray warana waxaan la yaabana maxbuus reef soo galay waligay ma arkin marka odagu ma xiree malaha guriga waa degan yahay wallahi anu waxaan la yaabana Xasan Daahir oo Sheekh Shariif diiday oo Xasan Sheekh diiday Sambaloolshana hadda nahiyinaya wuxuu farmaajo ku taageeray ilaahay amarkii miya odaga waa kululaaday hoy lama garle duqaan waan ugu wareersan ay almiina meehin ku xirtiino annafsane maandow gobolka meehiina la yiraa intuu ku yaa gobolka galgaduud meeshuu qayr maanta kula kulmay odayaasha wuxuu kaloo la kulmay wadaadadii ahlu sunna macalinku u horeeyo marka waxaan u malaynayaa kulankii ugu dambeeyay sagootinta ahaa inuu ahaa war macallinkii markuu ra'iisul wasaaraha la kulmay maanta dadka kor u ka salaamay wuxuuna yiri dan calafku ila jiri wanigan jiciirte ciao nabadgelyo war ra'iisul wasaaraha naftiis ma ka yaraysana heesay dhagansoyniyow war hooy reer mudugow dhahaad muuragteen maantaan idin haynaa yari war ma haysiine muran iyo waxaan loo baahnay inaad wakhtiga ku lumisaane war yaab laha jira maanta dowladda Kenya waxay dacwad kala geysay maxkamadda adduunka ICJ waxayna tiri garsoorka maxkamadda ama garsoorayaasha maxkamadda hal laga saaro madaxweynaha maxkamadaas Cabdiqawi Axmed Yuusuf oo ah nin Soomaaliyeed oo aan cadaalad ka sugayn war haddii maxkamadda adduunka xataa Kenya u eexato oo ay badda sido ka yeeli mayno war waxa la yiri balaayo ninkii dalbada kolley ma badbaadisee annaga muruq buuran oo balaare ku waarnayo qaxootiyadii badnaa dhaqaale ka beeranee boogaha intay sadhayan bukaan socodkana yihiin inaan boobnaa haboon haddii ay ku ballameen bawdada goortuu ka jabo afkiisana bacay ka qiro baroorta adaa maqlo bax iyo reer noo xigoo hadhow soo baxahaye bal eeg Afrika ay bal eeg Kenyaatigu wuxuu isbiday war ma haysiina wasiirka amniga Jubbaland ee dawladdu ay xirtay Amnesty International ka hadashay hal si daaymi yiraahdeen war maye waxay dhaheen ninkaas la soo xiraa sharci ahayd war nimayo waa la yaabay dawladdaani markay oo Mukhtaar Roobow soo xirtay Amnesty ma taageerine wasiirka dambigiisu weyna awowgoodna naar Jubbaland maxaa nabad iyo nolol daba dhigay eeg baawe Puntland way isku tashatay bacdeen unka ma fadhiyeen ma ino dhagar qabe ilaahay uma dhiibo guushe aqadabab la saara qunyar soo dhawaade amba dhamay qararkii wayna dhadhamisa war yaa xaq ka qaaday war dhagar qabaha aad sheegayso kuwa maanta qarxay miya war qaraarkan Muqdisho loogu talagalay inay dhantaa cid kale dhadhamin mayso war wala meelisan kafiiri asan meel kale kafiiri ana waa barrakile kasaaniya wala eri gudoomiyaga u suban ala kasaaniyo ay garaahun geeka war
qaraxa gudoomiyaha cusub lagu soo dhaweey waa kii wadooyinkan furayay dhagaxaanta soo basmaa la yiri war dhagar qabayaasha maanta waa la fashiliyey jidadkoo furanaasaa loo fashili karaa warnimada ciidamadu markay shabeellada hoose dagaalo ka wadaan qaraxyada muqdisho waa ka nasataa markay ciidamadu socdaanna qaraxyadu waa bilowdaan war maayadan General Tour yare idin oran shabaab waxay ka faa'iideystaan isbedelka iyo xilka qaadista war waxaas ma taqaantiin ninkii boojoobo waa daldalaha quudiga adi weli ma caarifin ana caarifay war adeer xaaja nin la toosan nin la tuur leh war xarfaan ha u bixin magaalada iska boojeeyano ani waa ka wata amal ma kalaamoysa ka boota abowno xariifo ha ku jiqino war maanta inoogu dareed yaa keenay ciyaalsiyada iyo balaayada geedka war maanta odayaasha wana bedelay maxay tahay surwaalka ka dhacdhacay war adeer sheegay xiriiradan maanta yaa noo keenay war Facebook waxa la soo geliyay muuqaal aad u maleeysid inuu khayr leeyahay sanbaloosha madaxtooyada ka baxaya ku soo geliyay warniyow khayrata kor badana hadda ka hor sanbaloosha soo dhacayaan waa arkay meeshan yaa ku soo geliyay warnimayo aniga waxaan isleeyahay xulguftaan khayriga sanbaloosha u dhaxayso waxay bilaabatay habeenkii su'aal khayr la weydiiyay uu sanbaloosha isagoo agaasimaha nabad sugidda uu hor istaagay war su'aasha sheegay igula soo dhacday labadii xaq darro ku heshiida xaqaas ku dir hore loo yiri saxan ku gud biya ma ka qaada ma u dhiiba xilka mid ma ka tuura lamgad la darsataya mid oo xilaad xoraa inta skiimaadi war adigu ma qorta gareena madaxweyne ku ah waraan lafta gareenayin yaa madaxweynahayni waa lugta gare war awowgood la naar annagay rabaan inay eega hurda gareen madaxweyne nooga dhigaan war adeer annaga madaxweynahayagu waa muuse xildiid hoy waa dhunsan tahay walaalkii muuse gareen allah madaxweynahaaga boowe madaxweynehina aamurun gareen war aawe madaxweynaha muqdisho maad sheegtaan war waa cumar finish gareen farmaajo gareen naxuuya farmaajo gareen waa madaxweynayaasha madaxweynahooda war nin kasta meelaa belbelaysa madaxweyne xaaf baa wuxuu yidhi la kala hari maayo waa la kala dambaynaya war anaa idin fahmaye maxamuud xasan nin saas ku taga maahan ee masallaga run hanu ugu duubinin annaga dhimashadii cali dheeraba hadday rumowday maxaa taas ka warsanaysa war hadday rumowday nabadgelyo war madaxweyne xeef maanta wuxuu yidhi maruu shirka hubyood ka hadlayey galmudug madaxweynaheedii iyo wasiiradeedii iyo xildhibaanadeedii intuba waa dhisan yihiin dowladdana si ku meel gaar ahan ku nidha hawsha u sii wada dib u heshiisiintii lagu ballamana siminaaray u bedeleen siminaar marka waxaan u fahmay warka madaxweyne xeef tus xalaal waa ka noqday warniyo warka xeef waxaan ku soo xasuustay hadda ka hor madaxweynihii soomaaliya maxamed siyaad barre allah u naxariistee markii dalka laga saaray ayuu bila kadib xuduudda kenya ka soo laabtay markuu wallaweyn soo marayuu shir jaraa'id qabtay wuxuu yidhi kormeer aan dalkoo dhan kuu soo indhaindhaynaya baa ku maqnaay haddana caasimaddii baan ku sii jeedaayo waan shaqaynaya marka madaxweyne xaaf markuu hobyo tegey miyuu yidhi kormeer baan ku maqnaa xaaf isagoo ku faraxsan markuu maqlay macallin maxamuud abbaandheeyey wuxuu yidhi dhibta laysku eegaa waynoo dhaxayso adiguba daraaraad ka qoslaysay dhooshe amba dhamay qaraarke waynaad dadamisaa dhibta laysku eegaa waynoo dhaxaysayo adiguba dharaaraad ka qoslaysay dhooshe sow cawadhaantiyo sow cawadhaantiyo sow filan maysid sow filan maysid sow filan maysid deleel anigu waxaan u malaynayaa markii axmed madoobe laga adkaan waaye ayay madaxweyne xaaf rajo gashay anigu waxaan u malaynayaa markuu arkay xaaf dhuusamareebeni macallinkii ka horowday in damac galay anna waxaan u malaynayaa macallinku xalay xoogaa kaluu ruuxruuxdo jeebkaa loo buuxshaa la yidhi xaafna inuu xiskin kala rabo waa la yaabe xaaf ma nabad iyo nololow aqoonsaday maamo xaafaddii xaggay ahayd warniyow maamada hala yaabin way xidhnaan jirto hadda la soo daayey xeefna waxaan leenahay jaaw nabadgelyo war shalay senatar muuse suudiya xafladooda waa ka hadlaya wuxuu yidhi anigu xaasidnimada ma aqaane odawaay waa macallinkayga marka anigu waxaan la yaaba muuse odawaay waaba dhali karaahe siduu macallin ugu noqdo war muuse cirracaanoodkaad ku aragteene hooyadiis iyo aabbihiisba waa nool yihiin marka in macallin noo noqdaa waa suurtagal horaa waxaa loo yidhi maclinbo maclinaa kaween war hadda ka hor
xaaji muuse suudi mar la weydiiyo la yidhi muuse waad odayowdee miyaadan dagaalka iyo wixii hore ka harayn wuxuu ku jawaabay yaaya minaanan odayoobin ma habaroobil war soo dhaaf war ma waayeel qolof laa yimid war hanfireesh awa koytay dhagansida war dawladda waa tii lagu xaman jiray shabaabaa meel kasta canshuurta ka qaada macaa dekadda ganacsaduu marka badeecada u soo xirato inta la wacoo la yidhaahdo intaasi konteynerka ay ku jirto keen intaasoo canshuura dawladduna waa inkiri jirtay wasiirkii maaliyadda afka furtoo qarin waayey barnaamijkii war wasiirka afka ma furana waa loo furay war muxuu busto u hugan waayey wareedhahana dhegaysta isagoo isla soomaalidu kuma maqlayso washington post la hadlaya wuxuu yidhi war shabaab iyo dadka kale ma kala naqaan kamana dhici karnuu yidhi meel kastayna joogaan midab lagu gartana male annagayna nugu dhex jiraan xataa warna miyaanu waabiyaabsanaa dawladda haddii shacabsha iyo shabaabsha anshal gordaana ay maamulo hayto buurku unfuulle wareedhaa dawladdu shacabkay canshuuraysa iyo shabaabkii qarxinaya isuma ekee waxaan maqli jiray nin bashaar ha qaatiyo hub iyo shaabad gooniye shayddaanba shayddaanka kale wuu shan togayaaye shaki male inay laba shabaab wada shaqeeyaane war nin caddaan oo filib la yidhahdo wuxuu yidhi waa la yaab in shabaab iyo daash aysan wada shaqayn balse shabaab iyo dawladda ay wada shaqeeyaan inaad beenlow taa waxaan ku ogaaday raadiga filibis la yidhaha goorbaa noogu dambaysay war hadda isha iga gelin miyaa socdo war naga tag hadda dhigaha ay tirnaa socotee warniyo adiga hadbaa bu'aala kugu dambaysay war waa beer wax dhale iska dhaafa war horta kaalaya canshuurta shabaab qaata waa la yaqaan waxay ku qabtaan oo dadkay ku qarxiyaane canshuurta dawladdu qaadata maxay ku qabataa waryaa jididha bilaasha la kiiro ee dhagahaga be maaha war yaa naga tag madaxda maamul goboleedyada lagu ridaa war naga tag mooshinkaa lagu xijaabaye war hadda kadib sidiisaba fadhi ku dirirkaan 4.5 ana lagugu qayb loo qaybin mahayo wallaahi loo qaybin bilaahi loo qaybinayn war adeera qaranka somalilan horuu idinka go'aye 4.5ka maba yaqaanaba war xishooda ammaanka ilaalsha